geesta kale mar telefishinka caalamiga CBA uu wax ka weydiiyay guddidaasi in xisbiga wadani gudoomiyihiisa lagu wareejin doono hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Xaaji Cali Xasan ayaa waxa ay ku jawaabeen guddidu xisbigu gudoomiyaha xisbiga maanta haya qofuun hadiyadu uma siinayo ma wareejinayo xisbiga shirweynaha waxa loo soo qabtay in guddidaasi gudoomiyaha ilaa ku xigeenka shanta gudoomiye ku xigeena iyo xogayaha guud iyo ku xigeenka lagu soo doorto cid kastaana xaq bay u leedahay inay soo sharaxdo hadii ay shuruudaha buuxiso shuruudaha markay buuxiso kadibna shirweynaha ayaa lagu soo dooranaya cid kastoo muwaadinoon anigu ka midna xaq baan u leeyahay hadii himiladoodu tahay inaan soo sharxo laakiin cid gaar loogu wareejinaya ma jire taasi waa propagandada ay fidanayaan cidda naga soo horjeeda ee ka xun sidoo xisbana u hanaqaanay iyo maanta halku taagan yahay xisbiga ugu ballaaran Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Saki Ibrahim CBA Hargeysa